Bakri Media. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. دمان أخيارتا maanta meel kaan iskugu timid horta aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad meeshaan noogu soo qayb gasheen presentationka ka hortiisa anigoo ah gudoomiyaha banaadiriga ee Canada. waxaan idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. haddaan ka sii baxo waxaan idin leeyahay aad iyo aad sharaf weyn ay noo tahay inaan kala soo qayb gashaan xafladan ama presentationkan oo walaalkeeni Maxamed Cali macaano oo noo soo ururiyay historyga banaadiri asalkeedii haddaan ka kormaro xamar aniguna reer xamaraana dadkiina waxaan markaa jidka nagu arkadaan reer xamarkii aan dhahdan macnaheedu waxaa waaye xamar waa banaadir waa muqdisho dadkii oo nagula soo koray dadkii nala dhashay iyo dadkii noogu yimidba marka historyna ma duuganto. waxaan maanta jeclaysanay dadkii horey u yaqaanay taariikhda wayba ogyihiin dadkan aan waxba ka ogeyn ama mataqaanaa ay si kale u maleeyeen inay tahay banaadir waxaan jeclaysanay maanta inaan si fiican ama xoogaa inaad wax ka fahantaan ood aqoon u yeelataan wixii ay banaadiri tahay ee meesha ka timid asalkeeda yaa ku soo degtay yaa yimid century waxaan rabnaa idinkoo ma aragtay noogu dhiirigelinaya idinkana mataqaanaa aada leedihiin wallahi dadkan waa dadkii loogu yimid meeshaan bal maxamed cali ha noo bilaabo presentationkeena dhegeysi wacan iyo ka faa'iidaysi wanaagsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتدى شرفت لك سوق يبقى الشيء برزنتيشن كان هذا ومهد سنتين وإذن كلام مهد علينا يا وقت جينا غالي قاعد سيسان إنان صوبا لقو تاريخ لي حضارة البحر ماذا إيو رير بنادر مركا ومهد سنتين كل جيمبا انت برزنتيشن كان قلين وحان جعلها إنان هذا الكجيدي وهالكن anigoo ku hadlaaya bulshada banaadiriga ee ku nool waddanka Canada waxaan si wada jir ah u taageeraynaa go'aankii madasha qaran ee lagu qabtay magaalada Baydhabo taariikhdu ay ahayd 22 ilaa 25 June 2016 go'aankaas oo dhigayo in aqalka sare ee dhismaay inuu noqdo 56 xubnood halkii markii hore uu ahaa 54 iyadoo labada xubnood loo kordhiyay loo gaar yeelay bulshada reer banaadiriga iyo tii ahayd in magaalada Muqdisho ay ka soo galaan baarlamaanka aqalka hoose la xildhibaan oo reer banaadir iyo isxilqaankii ka yimid madaxdii madasha ka qayb gashay iyo dadkii reer banaadiriga ahaa oo qadiyadoodii marnaba ka seexan go'aanka madasha qaranka ee shirka Baydhabo waxaanu aragnaa bilowgii wadada xaqa soo saaridda iyo guul cadaaladeed. Soomaali waxay u baahan tahay cadaalad maanta haddii la xasuustay dadka reer banaadiriga xaqoodii haba yaraatee waxbay dhaamaan. waxaan u mahad celinayaa haddaan nahay bulshada banaadiriga ee waddanka Canada ku nool dhammaan madaxda sharafta ee ka qayb gashay shirkii madasha qaran ee lagu qabtay magaalada Baydhabo. waxaa mahad gaar leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaarihiisa Cumar Cabdirashiid Sharmaarke, ra'iisul wasaare ku-xigeen Maxamed Cumar Carte Qaalib, madaxweynaha maamul goboleedka Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Gaas, madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmedoobe, madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed
iyo beesha caalamka oo iyaguna lagu marti qaaday madasha qaranka. waxaan kaloo u mahadcelinayaa intii ka gacan geysatay arrintan iyada. waxaan kaloo u mahadcelinayaa Safiya Xasan oo iyada ah madaxda xaruntan oo iyadana noo suuro gelisay inaan ku dhigano presentationkeeni meesha. waxaa kaloo mahad gaar leh asxaabtaydii reer Kaldensa oo iyaga fikir iyo taakuleen iyo wax walba igu gacan istaagay. walaalahayga reer Banaadir, asxaabta kale aan soo koobi karin, kulligiin waa mahadsantihiin for your support. Thank you very much. maanta waxaan isugu nimid ama aan jeclaystay inaan soo bandhigo taariikhda reer Banaadir. taariikhda waxa waaye wax xusuus leh oo marnaba duugoobaynin oo ma aanan bedelaynin. adduunyadan aan ku noolnahay maanta wax walba oo dhacayo waxa waaye waa la qoraa, dad historiana jira oo qoraan oo hadhowtii mataqaanaa generationka cusub oo anaga naga dambeeya adduunyadan imaan doonaan ay akhrisan karaan ama ay maaragtay ay ka faa'iideysan karaan. magacayga waa kaas Maxamed Cali Shiiqe, telefoonkayga iyo emailkaygina halkaas uu ku qoran yahay. ciddii ii baahan tahay waa igala soo xiriiri kartaa. haddaa idinkiin sheego meelo badan aan ka soo shaqeeyey, wax yar waan soo koobay. waxaan ka shaqeeyey Toronto Hedro, waxaan ahaa system coordinator, system consultant. waxaan kaloo ka shaqeeyey Canadian Center for Victims of Torture, project coordinator aan ka ahaa, mortgage consultant, home life reality, lecturer aan waxaan ka bixin jiray duruus Info Systems Training Institute, Financial and Analysis Risk United Arab Emirates Central Bank, head of media and IT. Head of Media and IT Somali Basketball Federation, Executive Director Somali Banaadir Association of Canada. aqoontaydu waxay tahay IT iyo financial. waxyaabaha aan aad isugu taxallujiyey markaan Canada imid waxay ahayd inaan aqoontaydii kor u qaado oo aan shahaadooyin iyo mataqaanaan isleeyahay aad ku shaqo heli kartaa inaan samaysto. marka waxaan ahay Certified System Information Auditor CISA, Certified Control Objects for Information and Related Technology COBIT, Certified Information Technology Infrastructure Library, Risk Management and System Control, Oracle Certified Professional, Microsoft Certified Professional, Disaster and Recovery Planner. Presentation-kayga waxaan u kala qaybiyey 6 qaybood. midda hore waxay tahay hordhac oo aan u sameynayo mataqaanaa presentationka. socdaalkii ay dalmareenadii yimid Soomaaliya waxay ka qoreen xilliga ay yimaadeen iyo waxay kala kulmeen iyo deegaanada reer Banaadir. dad badanaa waxay u haystaan reer Banaadir inay degaan Shingaani iyo Xamarweyne keliya, laakiin aysan ogeyn meelaha ay degaan reer Banaadirka. kaalinta ay ka geysteen reer Banaadir xornimadii Soomaaliya, tacdiyaadkii loo geystay reer Banaadir iyo xalka maxaa xal ah. ujeedada bandhiga iyo sababta keentay waxay tahay in Soomaali weyn wax uu sheego taariikhda reer Banaadir. dad badan waa og yihiin taariikhda reer Banaadir, haddana refreshment ay noqonaysaa tan. dadka aan aqooninna waxaa waaye way ka faa'iideysan karaan, iyo in caalamka la ogeysiiyo lana baro xaqiiqda runta ay nolosha reer Banaadiriga oo aan si fiican u aqoonin ama isindha tiraayo jiritaanka reer Banaadir, si ay ugu noqoto bandhig dhaxalgal ah siiba dhalinyarada da'da yar oo fikrada qaldan ka fahamsan. waxaa laga yaabaa generationka maanta jiraan inaysan ka warhaynin xadaaradda Soomaaliya ay leedahay, taariikhda Soomaaliya ay leedahay, iyo kuwa dambe oo imaan doono oo annaga naga dambeeya sidaan hore u sheegay. arrimahan aan soo bandhigi doono waxaa ka mid ah taariikhda, xadaaradda, deegaanada iyo dhaqanka bahweynta reer Banaadir. ereyga Banaadir wuxuu micnihiisu yahay dekedaha, kuwaasoo laga bilaabo Shabeellada Dhexe ilaa iyo Juula Jabaay oo koonfurta Soomaaliya iyo tuulooyinka kale u dhexeeya reer Banaadir. meelahaasay degaan, not only Shingaani iyo Xamarweyne, Shabeellada Dhexe ilaa iyo Juula Jabaay. micnihiisu ma aha kan Sedbuursi iyo mataqaanaa reer Banaadir hadda may waxa dhahayaan annagaa iskale dhulkan iyo annagaa yeelan. maya, annaga meel waxaan degnaa Shabeellada Dhexe ilaa iyo Juula Jabaay.
soomaaliya waxaa yimid dalmareeno fara badan oo ka yimid carabo ha ahaadaan iyo gaala ha ahaadaan iyo Chinese ha ahaadaan ayaa yimid qarniyadiina soo dhaafay aan kulligood ma ka wada hadlayay laakiin kuwii oo laga qoray ama diiwaan geliyay waxay meesha ku soo arkeen ayaan soo qaatay aniga presentationka markaan sameynay researchyaal fara badan aan soo sameeyay dad badan aan la hadlay dad badan aan la kaashaday si aan ma arkin oo aan u soo bandhigo xaqiiqada dhabta ah Ali Yacquub in la dhahay wuxuu yimid qarnigii 9aad Ciise dabadeed Al-Mas'udi 933 Al-Istikhari 960 Ibn Hawqal 977 Al-Barruni kun iyo 30 yimid Al-Idrisi Ibn Battuta iyo Al-Haruni iyo Ibn Sa'id waxaa kaloo jiray iyagana yimid Soomaaliya badmareeno iyo qorayaal caan ahaa oo aan carab ahayn oo ka mid yihiin Vasco da Gama Marco Polo Sanjihu iyo Enrico Cerulli waxay qoraaladooda ku xuseen in xeebaha koonfurta Soomaaliya ay degan yihiin waagaas qowmiyadda Banaadir waxayna sheegaan inay yihiin qowmiyad xadaarad fac weyn ah means 9th century iyo 6th century dadkii meesha tagay waxay sheegaan in qowmiyadda Banaadir ay lahaayeen waagaas xadaarad fac weyn ah waxaan ka hadlaynaa Maxamed Cabdallah bin Maxamed At-Tanji nin Marokano ahaa Ibn Battuta uu ku magac dheeraa wuxuu ahaa dalmareen oo adduunyada dhan dhawaafay wuxuu 30 sano ku bixiyay socdaalkaas wuxuu tagay magaalooyin fara badan ee taariikhi ee dunida waqtigaasii Ibn Battuta sawirkiisa waa kana Ibn Battuta oo ahaa qarnigii 7aad ee hijriyada kuna beegnaa qarkiis 13aad ee miilaadiga wuxuu qoray kitaab oo la dhaho Tuhfatu Nadar fi Gharaib al-Amsar wa Ajaib al-Asfar oo uu kaga hadlayo safarkiisa buuggan uu qoray meel badan laga helaa waxaa ka mid ah jaamacadda American Congress Library oo qofkii rabo uu ka fiirsan karo waxaana lagu tarjumay luqadeyaal fara badan Carabi Ingiriis Jarmal Faransiis wax oo dhan waa lagu wada bedelay internetka hadaa gashiin waa ka wada heli kartaan socdaalada uu ku maray Ibn Battuta waxa ahaa wadamada Carabta Azerbaijan India meelo badan uu marmaray oo kitaabkiisa uu ku mention garay inuu tagay meelahaas tii Mali xataa uu tagay West Africa Ibn Battuta markuu qoray buuggiisa wuxuu ku sameeyay habka uu qoray wuxuu ahaa descriptive tilmaam marka wuxuu yiri dadka diga xeebaha koonfurta Soomaaliya waa dad nabad jecel means peaceful isla markaasna ku dhaqma nidaam iyo kala dambeyn iyo taakuleenta Soomaalida ilmahoodii iyo dadka la digaba bara diinta islaamka iyo xirfadaha ay ku shaqeystaan sida ganacsiga iyo xirfadaha kala duwan macnihiisu waxa waaye dadkii uu meesha ku arkay waxay ahaayeen dad nabad jecel oo mataqaana Ilaahay ka cabsi ku abuuran xirfado yaqaan oo ku shaqeysto quutilyoomkooda ka soo saarta dadka u yimaadana yani waxa imaan jireen maraakiib wadamo kale ka imaado iyana ma aragtay badeeco keeni jiri oo iyana meesha badeeco ka qaadi jiri dadkaas naftigooda qaarkood haday isdhahaan ka shaqeysta mataqaana magaalada Muqdisho waxay ahaayeen dad ay kaalmeeyaan caadooyinka uu sheegay Ibn Battuta oo uu ku arkay dadka reer Banaadir ee joogay waagaas wuxuu yiri markuu soo xirto dekedoodii intay doomo u qaataan ay ka soo dejiyaan ganacsatada la socod si ay ugu soo dhaweeyaan isla markaana geey jiray guryahoodii waxayna abuuri jireen heshiisyo ganacsi business deal ayay sameyn jireen 13th century maraakiiba ku soo xiranayeen dekedaha doona loo diraa dadkii la soo dejinaa waa la soo dhaweynayaa waxaa la geynayaa guryihii waxaa lala higalayaa heshiis ganacsi Ibn Battuta wuxuu kaloo sheegay inay meesha saldanad ka jirtay nidaam iyo kala dambeyn iyo ixtiraam
markii uu soo degay wuxuu yidhi waxaa la ii geeyey qaadigii isla markaana salaantii islaamka iska qaadin dabadeedna qaadigii uu sheegay in la ii geynayo suldaankii waxay ku tusinaysaa inay dowlad jirta iyo nidaam iyo kala dambeyn. ibn batuuta wuxuu kaloo kitaabkiisa ku sheegay maalintii afaraad ee booqashadeedii magaalada muqdisho ayaa waxaa ii yimid qaadigii magaalada iyo ardaydii iyo mid ka mid ah wasiirada. kitaabkiisa wuu ku qoray waxayna ii keeneen maro ama macaawis siduu qof walba u yaqaano iyo mar kale oo garbaha la saartay cimaamaduu sheegaya sida masarka oo kale inta la saaro. waxay ka mid tahay soo dhoweynta lagu yaqaano reer banaadir. goobaha shaqada ay ka shaqeeyaan waa dad ku fiican soo dhoweynta martida iyo soo dhoweynta dadka xirta ah, yacni dadka diinta islaamka fidinaya ama diinta islaamka rabo inay bartaan aaday u soo dhoweyn jireen. guryaha reer banaadirka waxaa joogay oo ka cunteynaya ilaa qof ama laba qof yacni qof kasta qofuu soo wadahaa gurigiisuu ku dhoweynaa, diintaa la baraa, waxaa la baraa nabadda iyo wanaagga oo ay leeyihiin iyo mataqaanaa ilbaxnimada ay ku tusaysaa. wuxuu kaloo sheegay in dadka muqdisho jooga waqtigaas ay yihiin dad firfircoon oo sameeya dharkaasoo waxaa la mid uusan jirin waagaaseti ayaa loo suuq geyn jiray masar iyo wadamo kale. 13th century masara loo dhoofin jiray dharka lagu sameeyo magaalada muqdisho iyo wadamo kalea loo sheegay. wuxuu sheegay in magaalada muqdisho ay tahay magaalo aada u qurux badan, nolol barwaaqo iyo ladnaanba leh, dadka deganna aan ugu imid waa qowmiyad xadaarad iyo taariikh fac weyn leh. yacni itis ma aha wax oo mataqaanaa uu iska yiri, laakiin wuxuu arkayuu sheegay qaabkii dharka loo sameyn jiray maryaalka aliindigi iyo hadda fashionka noqdeen iyo ma aragtay iyo qaabkaana loo sameyn jiray iyo taraashka dadkii taraashka maradii taraashka ahayd qaabkaana loo sameyn jiray oo dadka way isbiirsan jireen. nimankii yaa shaqaynayay oo iyagana taraashkii sameynayay iyo maradii aliindiga. qarnigii 12aad waxaa yimid Marco Polo oo u dhashay dalka Talyaaniga. Marco Polo safarku ku maray magaalada muqdisho wuxuu tilmaam ku bixiyay dadkii xilligaa ku noolaa, isagoo sheegay dadka Soomaalida ay hodan ku ahaayeen dharka laga sameeyay suufka. Marco Polo waa leeyahay wuxuu dhahay muqdisho waxaan ku soo arkay dhar oo cajiib ah oo aan la arag oo suufka laga sameeyay, macnihiis xiriir iyo waxaas camad u eg. asagana waxaa yimid sanadkii 906 Vasco da Gama qarnigii 14aad asagana waxaa yimid Vasco da Gama. Vasco da Gama wuxuu watay 6 markab oo ahaa nooca shiraacda ku socdo, wuxuuna soo gaaray magaalada muqdisho oo xilligaas ka hor aasaasay. wuxuu sheegay magaalada muqdisho in ka hor aan Portugiiska qabsan waxay ahayd magaalo maamulkeedu hoos yimaado 12 oday dhaqmeeda, isla markaana lahaa awood aada u ballaaran. 906 magaalada waxay lahayd maamul 12 oday hoos yimaadaan, isla markaana maamul awood ballaaran lahaa. qorayaashii caanka ahaa ee imaan jiray xeebaha Soomaaliya waxaa ka mid ahaa Enrico Cerulli ama Cerulli oo kitaabkiisa Soomaaliya Scritti Varie Editi ed Inediti ayaa ku sheegay in Xamarweyne iyo Shingaani iyo Marka iyo Baraawe ay ku yaaleen masaajido dhismahoodu muujinaya xadaarada facda weyn ee waagaas ka jirtay deegaanada Banaadiriga. masaajidadaas uu tilmaamay waxaa ka mid yacni ma ogtahay maanta adduunyadan aan joogno waxa waaye constructionka jiro xataa waxay tilmaamaysaa waqtigii la dhisay. مثلا hadda waxaan ku jirnaa qarnigii 21aad, guryaha hadda dhisan iyo kii la dhisay qarnigii 19aad isku wada mid ma aha, designka kala duwan, naqshada kala duwan. masaajidada marka uu waagaas arkay wuxuu ka mid ahaa masjidka Sheekh Cabdilcasiis, jaamacadda Xamarweyne, Aweeska, masjidka Fakhrudiin, Raqayga, Sheekh Nuureeni, Arbac Rukun, Cadayga, masjidka Sheekh Qaasim Baraawi, أو عثمان حسن أو أبالي. يعني مساجد داس واي وحول يابي أو أركي
oo tilmaamaysa xadaaradda waagaasaytii jirtay. Enrico wuxuu kaloo sheegay in degmada Shingaani ay ka mid tahay xaafadaha ugu qadiimsan caasimadda Muqdisho, waxayna leedahay in ka badan 13 masjid, kuwaas oo kale ah masjidka Fakhrudiin Shariif Axmed, jaamacadda Shingaani, masjidka Cabdisamad, masjidka Qabuuraha Shariif Calawi, masjidka Bakarow, masjidka Bartaani, masjidka Awkumbayo, masjidka Mataanaha, masjidka Barsanji, Sheekh Saciid Aw Mukhfi iyo Shariif Cumar Abow. masaajidadaas ku yaala Shingaani oo iyadana ka muujinaya xadaaraddaasaytii. horaantii qarnigii 14aad ee miilaadiga ayaa Soomaaliya macaamiil la gashay imbaradoriyadii Shiinaha oo jirtay sanadihii 1402 ilaa 1425. heshiisa la galay waagaasaytii yani sanadkii 1402 1425. imbaradoriyadaas waxay madax u ahaan jireen nin la dhaho Manjilu, wuxuuna xeebaha Shanjihu wuxuu xeebaha Afrika u soo diray sarkaal la oran jiray Shanjihu meeluhu booqday Soomaaliya waxaa ka mid ahaa dhulalka Muqdisho, Baraawe iyo deegaanada Jubbooyinka. musaafiriintii Shiinaha marka ee soo gaaray magaalada Baraawe qarnigii 14aad ayaa waxay sheegeen inay ka mid tahay magaalooyinka ugu da'da weyn Soomaaliya, waxayna door weyn ka qaadatay fidinta diinta Islaamka. reer Baraawe waxay door weyn ka qaateen fidinta diinta Islaamka iyo waliba ganacsiga beeraha sababtoo ah wuxuu Ilaahay ku manaystay Baraawe kheyraad dabiici ah oo aan la sheegi karin. yacni Baraawe waa magaalo aad u qurux badan oo aad u fiican oo yacni wax walba leh, beer bad ay leedahay. qarnigii 14aad Nabi Ciise kadib ayuu cutubyo maraakiib ah soo booqan jireen kana ganacsan jireen xeebaha Afrikada bari, waxayna ku xiran jireen dekedaha Muqdisho iyo Baraawe. sida ay musaafiriinta Shiinaha soo tabiyeen magaalada Baraawe waxaa hareeraheeda oo dhan ka dhisnaayeen derbiyo dhagaxa. waxay ku tusaysaa in guri laga dhisin jiray waagaasaytii, yacni shumeyntaa jirtay, dhagaxaa jiray, looxaan albaabada laga sameeyaa jiray, lamayeeriyaa jiray. waxaas oo dhan waxay ku tusinaysaa in uu ganacsi jiray, ganacsi oo caalamka kale lagu xiran yahay. waxay ahaayeen kuwa ilaha dhaqaalaha waxay ku saleysnaayeen badda iyo malaaygaad. malaayaa la soo gaadi jiray, shirimbis wixii badda ku jiro oo Ilaahay siiyey ayay soo gaadan jireen oo ku samayn jireen. dumarka waxay xiran jireen la yiri silsilado iyo dhegedhege dahaba, jewelries ayaa waagaas jiray laga keeni jiray adduunka meelaha kale. marka banaanka marka ay marayaan madaxda iyo wajigaba way dedi jireen la yiri xishood aawgiis. waxyaabaha kale oo laga ganacsan jiray waxaa ka mid ah hargaha shabeelka, lubaanta, cambarka nooca qaaliga ah ee midabka dambaska leh iyo goroyo. reer Baraawe ayaa u safri jiray, ayaa safar dhowr ah ku tagay wadanka Shiinaha. yacni Baraawe laga baxaa, Shiina la tagaa, doona la raacaa, baddaasaa la maraa, ganacsiyaa laga sameynaa. taas waxay tilmaam cad u tahay in ay ahaayeen reer Banaadirka ama Baraawe ha joogo ama Xamar ha joogo ama meel kale ha joogo, inay ahaayeen dad oo ganacsi ku shaqo leh. masjidka Sheekh Cabdicasiis ee ku yaalo Kaamba Amxaaro, kastoo aan aniga hadhoweytii aan sheegi doono masaajidada Xamar ku yaalay sanadihii la dhisay, laakiin kan waxa waaye masjidka Sheekh Cabdicasiis, jaamacadda Xamarweyne oo iyadana mataqaanaa ugu ah masaajidada ugu qadiimsan magaalada Muqdisho. mixraabka jaamaca Xamarweyne haddaa fiirisid siduu u samaysan yahay naqshadiisa, waxay ku tusaysaa xadaaradii waagaas jirtay oo sida loo sameeyey af carabiga ku qoran, gidaarada iyo ma arkin oo kerviska ka samaysan yihiin, qoraalada derbiyada ku qoran iyadana sidoo kale af carabiga waagaas jiray iyo hadda af carabiga la qoraayo isku wada mid ma aha. masjidka Sheekh Suufi oo iyadana noqotay meel la ziyaarto oo waagaasaytii dhisnaa. masjidka Fakhrudiin asagana wuxuu ku yaalay iskaashatooyinka soo horjeedkiisa. masjidkaanaytii aadaa mataqaanaa loogu hadlay. sababta keentayna waxaa waaye maarbalkii ku dhisnaa rukhaamka
oo ku dhisnaa iyo fartii ku qorneed ayaa waxay noqotay mid aada u cajiib badan. masjidka Shariif Axmed oo ku yaal Shingani, masjidka Bank Boorsaciid agtiisa uu deganaa, asaga naftigiisa markii oo dowladda kacaanka maraa la yiri la qodo masaajid kala ka soo hoos baxay hoostiisa. inta waxaan ku soo gudbinayaa dhismaha masaajidyada Muqdisho. jaamaca Xamarweyn waxaa la dhisay 630 hijrigii, waxay lahayd 31 tiir. masjidka Arbac Rukun waxaa la dhisay qarnigii 7aad ee hijriga. masjidka Fakhruddin waxaa la dhisay sanadkii 667 hijriga. masjidkan wuxuu ku caanbaxay in derbiyadiisa ay lahaayeen naqshado kala duwan oo aada u qurux badan oo ka sameysnaa rukhaam ama maarbal. masjidka Axnaafta asagana waxaa la dhisay qarnigii 7aad, markii dambe isticmaalka Talyaaniga dumiyey Baarsabooy meeshii laga dhigay uu ahaa Shingani ku taal. sababta aan waxaan dhan u keenay waxay tahay inaan sheego inaan joognay dhulkaas sanadahaasaytii inaan joognay oo aan ahayn dadkii meesha deganaa. deegaanadan ka hadlaa marka deegaanada reer Banaadir sidaan hore u sheegay dad badanaa waxay u haystaan in kaliya ay degaan maxaa lahaa Shingani iyo Xamarweyne kaliya. reer Banaadir Shingani iyo Xamarweyne kaliya ma degana. qolo kasta ama ummad kasta degaan ayaa lagu yaqaanaa oo ay ku dhasheen asalkooda. Soomaalidana waa istaqaanaa siday u kala deganaayeen asalkooda abka ab. deegaanada waa meel ay nolol jirto oo ay ku noolaan karaan dad iyo dunyaba, oo cunto iyo biyo ka jiraan. haddii waxaas jirin dad ma ku noolaan karo, ma garat, meesha abaaray noqonin. marka meelaha ay degaan reer Banaadir waxaa waaye intaan aa arkaysaan Muqdisho, Jilib, marka Wanlaweyn, marka Caday, Dhanaane, Warshiiq, Baraawe, Hawaay Dhaxan, Jowhar, Kismaayo, Afgooye, Jilib, Baydhabo, Awdheegle, Jamaame, Jaziira, Gandarshe iyo Qoryooley. marka miinis waxaa waaye ummad weyn oo ballaaran waaye, ma garat, oo meelahaan oo dhan degaan, ma fahmino. magaalooyinkan dhan ma ka hadlayo, laakiin waxaan ka soo qaadanayaa qaar yar. waxaan ugu soo horeysiyey Gandarshe. Gandarshe waxay ku taalaa Shabeellada Hoose, koonfurta Soomaaliya. waxaa lagu qiyaasaa in la dhisay qarnigii 11aad. waxayna u jirtaa magaalada Muqdisho 45 kilomitir. dhinaca xeebta waxaa xuduud wadaagta Dhanaane. waqooyi waxaa ka xiga dooxooyin yareer oo aada u qurux badan. galbeedna waxaa ka xiga tuulada Jilib. marka koonfurna waxaa ka saaran badweynta Indiya. dadka reer Gandarshe waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad aada u neceb gaalada iyo gumaysiga, aadna u jecel islaamka, yacni dadka diinta aada u ilaaliya oo ku dhaqmo waaye reer Gandarshe. Warshiiq iyadana carabtii hore waxay Soomaaliya soo gaareen qarnigii 7aad. meelaha ay carabtu timid waxaa ka mid ahayn magaalada Warshiiq. waa magaalo xeebeed ee ku taalo gobolka Shabeellada Dhexe. haddii markaan presentationkii bilaabay waxaan iri waa Shabeellada Dhexe ilaa Juulo Jabaay. marka Warshiiq oo ka tirsan Shabeellada Dhexe waxaa dega reer Banaadir. taariikhda magaalada Warshiiq ayaa ah mid aada u fac weyn. waa xarun diimeed waxayna ku caan tahay fidinta diinta islaamka. qur-aanaa laga baran jiray, xarumo diimeed fara badanaa ku jiray, dad badanaa ka soo baxeen, adduunyadaa loogu imaan jiray. iyo magaalada Jaziira iyadana waxay ku taalaa Shabeellada Hoose. waxaa la dhisay qarnigii 6aad ee hijriye. buugagta laga qoray qaarkood reer Banaadir through Jubbaland ayaa ka mid ah. kan waxaa laga qoray magaalada Baraawe iyo dadka deganaa iyo mataqaanaa waxay kala kulmeen. Hadayti Falaay hadalkiisa markuu sheegayo wuxuu yiri annaga markaan aan dhahayno hebel yaabay qabiil ma sheegno, waxaan ku abtirsanaa magaalo. يعني waxaa leeyahay reer xamar waa miinis, qofkan xamar buu ka yimid, kan reer marka waa markuu ka yimid, kan reer baraa waa macnihiis reer baraa uu ka yimid. meesha oo mataqaanaa taasoo xadaarad casri ah oo adduun weynaha la jaan qaad. macnihiis waxa waa hadda maanta anaga Canada joogno
waxaana la leeyahay Torontoian waay ma fahamto qofka reer Toronto ma la dhaho qabiil waxa waaye qabiil hebel waay baraawi marka dhismihii ka yaal ama waxyaabaha ay ku caan baxeen waxaa ka mid ah astaamahaanayti oo lagu garto gandarshi iyo jaziira iyadana yani ilaahay wuxuu siiyey dabeecad yani qurux fara badan buugagtii talyaaniga ay ka qoreen yani maalan kan waxaa la qoray 1300 ilaa 1400 oo laga hadlayo warshiiq masaajidyada gandarshi iyo warshiiq ku yaal iyagana waagaas ka dhisnaayeen yani all these things waxay tusaysaa yani inay xirfad jirtay in mataqaana yani kind of engineering jiray in mataqaana shaqaalo oo wax dhisay joogeen albaaba la sameynay shuba la sameynay kulligood waxay ku tusaysaa inay meesha farsamad ka jirtay naqshadahan hadda fiirisan albaabadan siday u naqshadaysan yihiin oo waagaas la sameeyay waa wax cajiib leh ma garatay marka iyadana hadda waxa waaye waa iska qadiimo weyn waxay ku yaalaan xaafadda Xamarweyne waxaa u gudbaya reer Banaadir iyo halgankii xornimada Soomaaliya reer Banaadir waxa waaye waxay kaalin weyn ka qaateen xornimadii Soomaaliya qoraalka taariikhda reer Banaadir lagama reebi karo halganka gobonimo doonka Soomaaliya oo ka bilowday magaalada Xamar iyo dadka deegaanka u ahaa dadkii ugu horeeyay oo loolanka siyaasadeed gobonimo doonka Soomaaliya la galay gumaysiga Ingiriiska iyo Talyaaniga qaybta ay ka qaateen waxaa jiri jirtay waagii isticmaalka Talyaaniga iyo Ingiriiska joogeen Soomaaliya ayaa waxay sameysteen reer Banaadir Xamar Youth Club markaas marka hore isticmaalka Talyaaniga ogolaaday in la sameeyo mataqaana naadiyaal ama mataqaana ururo oo aan siyaasi ahayn marka Xamar Youth Club ay sameysteen bishii Abriil 15keedii 1943 yani SYL-ka waa ka horeeyeen hal bil ay ka horeeyeen marka hal bil kadib May 15 ayaa la aasaasay xisbigii Somali Youth Club oo kadib oo isku darsami doonaan oo noqon doono SYL Xamar Youth Club iyo Somali Youth Club maamulka Ingiriiska ayaa diiday dalabka SYC oo lagu dalbaday in magaca SYC loo bedelo SYL sababtoo ah calanka SYC midabkiisa ay ahaa mid gaduudan kaasoo maamulka Ingiriiska ku tilmaamay inuu yahay calan shuyuuci oo haddii aan la bedelin in dalabka marna la ogolaanaynin la siin doono xataa naadiga SYC la xiro reer Banaadir in order to protect xisbiga in order inay ma arkin wadanka ay badbaadiyaan waxay sameeyeen shir degdeg ay isku yimaadeen waxaa la go'aamiyay in SYC la badbaadiyo intii albaabka loo xiri lahay mar aloor waxay dhaheen anaga midabkeena gaduud waaye kiina midabkeena buluug waaye idinka kiina gaduud waaye labadeena isku dareena calankii wuxuu noqonayaa gaduud iyo buluug therefore Ingiriiska ma diidi karo ma garatay SYC-na waa la diiwaan gelinayaa annagana waa isku darsameynaa calanka saanu ahaa marka SYC midabkeedii kor Xamar Youth Clubna buluugaasuu ahaa dadkii aasaasay SYL waxay ahaayeen 13 qof 6 waxay ahaayeen reer Banaadir 6 oo bidixda xigta Cabduqaadir Saqaawudiin Sheekh Aweys Xaaji Maxamed Xuseen Dheere Xaaji Dheere Maxamed Cali Nuur Hudo Macalin Cabdulle Maxamed Cusmaan Baarba 6dan waxay ahaayeen reer Banaadir gudoomiyihii ugu horeeyay waxaa noqday Saqaawudiin ka bacdi Xaaji Maxamed Xuseen wuxuu ahaa ku xigeenkiisa Yaasiin Xaaji Cusmaan Maxamed Xirsi Nuur Daahir Xaaji Cusmaan Maxamed Cabdulle Xirsi Cali Xasan Maslax iyagana waxay ka mid ahaayeen xubnihii aasaasay xisbiga SYL gudoomiye waxaa loo doortay 1943 waxaa loo doortay Xaaji Maxamed Xuseen Saqaawudiin Cabduqaadir Saqaawudiin Xaaji Maxamed Xuseen ku xigeenkiisu noqday 1947 yani 4 sano 3 sano ka bacdi ama 4 sano waxaa geeriyooday Cabduqaadir Saqaawudiin
ayaa wuxuu hayay guddoomiyenimada SYL ilaa 1957. dastuurka ay samaysteen SYL fikradihii ay soo jeediyeen madaxdii ku jirtay xisbiga waxaa ka mid ahayd in diinta islaamka dalka lagu hogaamiyo, in la raadiyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, in la ciribtiro dhaqamada xunxun. waxyaabaha aan maanta aan leenahay hala sameeyo ayay ka mid yihiin in la hormariyo aqoonta hidaha iyo dhaqanka suuban, in la qoro afka Soomaaliga. waxay ahayd constitutionka SYL-ka oo ay ku dareen reer Banaadir. sidaas darteed xisbiga SYL waxaa u suurta gashay inuu xafiisyo ka furto gobolada, dad badan inuu yeesho. Soomaalidii yaa ku soo badatay. wuxuu si weyn ugu guuleystay inuu soo jiito taageerada shacabka weynaha iyo siyaasadda gaarsiin meel kasta ay Soomaalida joogto. qoraalkan waxaa qoray oo United Nations u diray waagaasaytii Xamar Youth Club iyo SYC si wadanka xornimadiisa ay u soo hantaan iyagoo aan dagaal galin, iyagoo dhiig bixin ayaa mataqaanaa isticmaalka Ingiriiska ku qasabtay inuu wadanka iskaga baxo. qoraaladii loo gudbiyey UN-ka. reer Banaadir waxay leeyihiin siyaasiyiin, waxay leeyihiin aqoon-yahano, waxay leeyihiin culamaa u diin, waxay soo qabteen xilal fara badan. duqli ugu magaalada Muqdisho oo dadkii loo magacaabay xilalkii magaalada Muqdisho waagii isticmaalka Talyaaniga kadib waxaa ka mid ahaa Maxamed Sheekh Jamaal Cabdullaahi oo ku magac dheeraa Jamaal Jabiye. waxaa kaloo jiray Shariif Maxamed Imaan Key oo asagana 1963 1965 duq magaalada ahaa. Dr. Shariif Maxamed Ceydaruus asagana 1966 iyo ilaa 1970. Jamaal Jabiye wuxuu ku dhashay magaalada gobolka Shabeelle, magaalada Marka ee Shabeellada Hoose 1960. Jabiye waxaa loogu bixiyay waxa waaye wuxuu sameeyay jidad ceel gaabta ilaa iyo Afasyoon, marka guri badan uu jibiyey, marka saasaa loogu bixiyay Jamaal Jabiye. waxyaabaha lagu xasuusto Jamaal waxaa ka mid ahaa gumaysiga Talyaaniga ayaa midab kala sooc ka waday goobaha uu maamulo, iyadoo Maxamed Sheekh Jamaal uu noqday ninkii ugu horeeyay mara halka loo yaqaano Karooji Dal Suud. Karooji Dal Suud ma mari jirin, Talyaani le mari jireen, Soomaalida waa loo diidi jiray. degmada Xamarweyne ku taal wuxuu ku maray meesha Karooji Dal Suud isagoo labada farsaas u taagayo oo macnihiisu tahay guul ama geeri. talaabadaasaytii ayaa u horseeday inay dad badan ay ku daydaan oo ay sameeyaan qasabna ku maraan Karooji Dal Suud. طبعا waa la xiray, xiritaankii kabacdi markii uu soo baxayna waxa waaye duq magaalada laga dhigay. reer Banaadir kama fogay isboortiga. Cali Cumar Sheegow waxa waaye asaasihii guddiga Olombikada Soomaaliya 1959 wuxuu ahaa wasiirkii garsoorka dowladdii Allahu naxariistay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. iyadana waxay muujinaysaa aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta inkastoo ay dad badan jiraan oo reer Banaadir ah, haddana ay mudan yihiin in la xuso kaalinta ay ka soo qaateen. haddana waxaan ka hadlayaa tacdiyaadkii loo geystay reer Banaadir. dagaaladii sokeeye markay qarxeen Soomaaliya ma ahayn mid ku burburay xukuumaddii dowladda Soomaaliyeed oo keliya, laakiin waxay noqdeen mid raad xun ku reebtay qaab dhismeedka bulshada Soomaaliya. si kastaba ha ku bilaabato ishardaankaas waxay arrintu isugu soo biishubatay legdan xadaaradeed iyo boob loogu talagalay in la boobo taariikhda aada u facweyn. dadka reer Banaadir iyo inta la ayna ah ama inta la mid ah ay noqdeen bartilmaameed nugul
oo sameeyey masiibadaas murugada badan oo si aad ah u taabatay noloshoodii maadiga iyo tan ruuxiga yacni dabcan dagaal markiis dhaco dadaa victims noqda dadaa dhibaato ku dhaca waxaa jira oo unique ah iyo wax common ah يعني مثلا waxyaabaha commonka ah waxaa ka mid ah mataqaanaa dad la dilay iyo xoolo la dhacay iyo waxyaabo saas laakiin waxyaabo waxaa jira oo uniqueness oo la dhihi karo kan way ka duwaneyd mataqaanaa wixii dhaceen waxyaabaha ka dhacay deegaanada reer Banaadir ayaa waxa lagu tilmaami karaa inay la mid tahay dhacdooyinkii hore ee qarniyo hore ka dhacay meelo ka mid ah adduunka sida dadkii tartarka ahaa oo intay xadaaradii weyneed Baghdad sameeyeen buugagtii waxay ku shubeen webigii Dijla iyo Furaad duwaadii ku qorneyd buugagtaas ayaa webiyadii madoobeeyay madow ka wada dhigay tan ugu weyneyd oo yani waxaan soo qaatay 5 points ama 6 points dhibaatada loo geystay reer Banaadir number 1 waxaa ka mid ah manhajyada waxbarashada system of education Soomaaliya oo maamul dawladeed ka dhaxashay gumaysiga manhajyada waxbarashada sidooda loo soo qaatay يعني اسكولات أنا اسكول عربان كسو بحي وحالي براي الحضارة العربية التاريخ الإسلامي وحسن البراي ولي جد نلما برين محي هذا تاريخ الصومالية حضارة الصومالية دكي كسو بحي تيبا تلياني يغانا سيدو اسكولة تيبا حالو لغاية تليانيغا كو إنجريس كسو بحي يغانا سيدو كالة سيداس آوغي جيلال كسو كوراي لغوما بربارين جيرين برشادة تاريخ دودي لغان كودي يا حضارة دودي lagumana abuurin garasho iyo dareen wadaniyeed Soomaalinimo malis bari jir qoomiyadda Soomaaliya malis bari jir kulli waxaana la bari jiray Talyaani Ingiriis iyo Carab hay-adihii dhaqanka iyo tacliinta ee dhismay gobonimada kadib oo aan daneynin ama u arag dhaqanka reer magaalka ee xeeb degtada ah iyo kuwa beero qotada ah kuwaas dhan waa la ignore garay يعني منهجدي أو حتى متقانا كدب للسي يعني وحي كسلسنة ميجا يو بديها يو بير يو متقانا وحياة كله قرصت في صومالي أنا أيضا وحي كم داد وحيابه تعديات كيلو جستر البنادر سببته مرنا بمتحقلين رقم ماذا تاريخ ذا يو حضارة ذا حب دكتور البنادر يو بيرليد الصوماليات وحكلية أيسكو مشغولين وحوق السارين أي أهد arrimaha u gaarka ah dhaqanka reer miyiga iyo kuwa sawiraya qiyaamka reer guuraaga iyo xoolo raacatada burburintii xafiiska diiwaan gelinta office anagraph meeshaas waxaa jiray Soomaaliya nin walba teesar uu qabay oo mataqaanaa lagu garto taasaytii burburinteediina waxay ahayd mataqaanaa one of the worst things oo dhacay sababtoo ah maanta who is who hadii la dhaho qof yaqaan ma laha qof oo yaa Soomaali ahaan maanta hadii la kala sheego qof yaqaan ma laha madxafkii Saciid Barqash oo iyadana taalay mataqaanaa xadaaradii reer Banaadir oo iyadana ma aragtay aad loo burburi boobkii lagu sameeyay madxafka waxay fajaci walbahaar ku noqotay adduun weynaha iyo ururada caalamiga ee taariikhda xafido taasoo ku kaliftay inay soo gurmadaan si ay u badbaadiyaan wixii ay badbaadin karaan ujeedada ugu weyn ee laga lahaa boobka waxay ahayd isirzuulinta taariikhda reer Banaadir taariikhdooda yaa meesha tiilay burburinta masaajidyada taariikhiga yani 4 rukun masaajidka Sheekh Cabdilcaziz you name it ma garatay waxa soo dhan waxa waaye mataqaana taariikhda jirta ayaa la rabaa in la bedelo maktabada qaranka National Library-ga Soomaaliya iyadana waxay ahayd one of the things oo ma aragtay oo lagu burburinayay taariikhda reer Banaadir isirzuulin macnihiis waxa waaye qofka markii existence-kiisa oo dhan la siibayo la tuurayo ma fahamtay isirzuulinta marka yani dhismi hadda xaafadda degmada Shingaani marka laga hadlayo waxa waaye si xuna loo burburiyaa guryihii masaajidadii waxyaabo badan marka iyo boob oo aan xad dhaaf oo aan mataqaanaa aan la aqoonin meel ay u socdaan iyo waxa la jeedo ya
waxaana kaloo aad iyo aad ugu xumaa inaanu jirin ilaa iyo hadda cid wax ka qabanaysa xataa ka hadlaysa dhibaatooyinkaas la geeyey ama dowlad ha ahaato badbaadinta dhismooyinka taariikhiga u ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo ay ku faani karaan berito marka caalamka ay dhismooyinka xadaaradda leh ku kala tartamayaan yani heritage exhibitions jira dunyada lagu qabto artists jira waxa jira waxyaabahaas oo dhan يعني وحي يالي متحفكي سعيد برقش وحي يالي متقانا مساجددي دسمهودي نقشدهودي كلي ولا بربوري marka what is the solution marka hore dhibaatada waxay ka timid anagoo aan qulubta meel dhex isu keen ma israbno nin walba ninka kale waa nacibiya urku wax ugu haaya may xaqiraad midab takoor wax walba qulubteena misku imaanin ayaan waxaan ku mashquulnay qorshaha nidaamka federaaliga federaali intaan isku dareena kanaan isku daraa kanaan war anaga horta qulubteena aan isku furno aan mataqaanaa wada hadalno dhibkii dhacay aan xal raadino ka bacdi waa ka wada hadli karnaa waa wada hadli karnaa ya in la iscafiyo qofka ama reerka lagu xadgudbay haddii xumaanta looga soo hoydo wuu dulqaataa raaligelintana wixii hore ma bedesho laakiin waxay ballaarisaa mustaqbalka haddii la rabo in la ballaariyo waa in la iscafiyaa waxaa jira gafaf xun ama xadgudub aan la cafi karin ilaa iyo in cadaalad la marsiiyo maahine runtiina waa adag tahay in loo adkaysto marka qof kala dulmay uu arkayo qofkii dulmiga u geystay oo aan cadaalad la marsiin yani dada waxa arkay wax dilay ama wax dhacay ama masaajidka safka hore isku la dukanaysiin oo aad maaragtay salaad isku la jirtaan dhibaatada ugu weyn waxay ka timid anagoo aan qulubta meel dhex isku gelin taasoo ka mid ah noocyada kibriyada ugu necab yahay ilaahay oo sababta ibliis loo lacnadeeyay marka waxaan ku boorinayaa Soomaalida inay nafsadooda xakameeyaan kuna dadaalaan sida ay ugu nadiifin lahaayeen wasaqda heebsooca qalbigoodana ugu talaali lahaayeen caruurta ama jiilalka cusub ee soo koraya kibirkana dhalanteedka dhulka ciriiri ma noqon waana wada deeqaa everybody hadkii dhintay kii hadda dhalanayo kuwa dhiman doona kulli waana wada deeqaa laakiin qulubtiyaa ciriiri noqotay qulubta it is very in la isku tanaasulo in la isku tanaasulo midowga Yurub waa aragteen dowlado badan la isku daray qaar faqiir ay ahaayeen qaar way dhaqnaayeen qaar mataqaanaa ya waxyaabo badan lagu kala duwanaa laakiin haddana waxay ka hormariyeen masaalixdoodii gaarka waxay arkeen in ay dan u tahay inay midoobaan oo ay maaragtay isku tanaasulaan يعني dadkan isku midoobay dhaqanka ay kala gedisnaayeen different culture different beliefs waxyaabo badan marka taariikhda midaysa iska badaaya waxa soo kala dhex martay dagaalyo iyo mugdiyo badan dadkan hadda heshiino hayo isku imaano hayo daday iska dileen dagaale iska wadama la burburiyo waxa la burburiyo haddana waxa la isku darsaday anaga maxaa noo diiday inaan wax isku darsano aan iscafino aan isku tanaasulno qulubta aan isku wada furno haddii aan rabno waayo wadankeena inaan badbaadino dadnimadeena aan badbaadino generationka anaga naga dambeeya inaan wax ugu tagno iyada oo intaas dhan ay jirto haddana la midoobo si loo gaaro quwad iyo horumar balaaran intaas oo dhan iyagoo kala duwan bay waxay isku darsadeen mustaqbalka fog future waxay samaysan lahaayeen midnimo aan ku qeexi karaa hal ahaansho unity waana awoodda bulsho oo wada nool waxaana kale oo aan dhihi karnaa midnimo waa asbaabta keenta midowga caqliga iyo xooga laba qof markay midoobaan waxaan dhahnaa common factors ay leeyihiin caqligay ka midoobi karaan xooga waxbay isku darsan karaan waxbay isdhaafsan karaan taasoo dhex mari karta aadanaha iyo xayawaanka oo kaleba midnimadu waxay ummaduhu ku gaaraan xagga sare sharaf cizi iyo karaamo markii oo aad midnimo aad samaysid waxa way karaamad iyo sharaf aad yeelanaysaa waxay ku gaari karaan oo kale dantoodii
waxaa ka mid ah inay noqdaan bulsho ku wada noolaato deganaan iyo xasilooni markaan midoowno waay waxaa taa la mid ah inay ummaddu noqoto dad laga cabsado la tixgeliyo ama la maamuuso haddii aad wiig tahay al-itixaadu quwa ayaa carabta tiri marka haddii aadan adiga xoog lahayn waxaa waaye qof walba waa kuun guriyeysana laakiin markaad awood leedahay xoog leedahay waa lagaa cabsahaa midnimadu waa quwadda waxay ka mid tahay sunnaanta kowniga ee haddii la qaato lagu gaaro guusha haddii laga gudbo marna laga mutaysto in basharka loogu hoos maro haddaba waddada midnimada lagu gaari karo waa kuwan soo socda yacni this is the way oo aan leeyahay midnimaan ku gaari karnaa haddaan rabno inaan waddankeeni aan badbaadino haddaan dadkeeni badbaadino in ilaahay dartiisa la isku jeclaado ilaahay dartiisa inaan isku jeclaano aanu u fiirin qabiil hebel waaye hebel waaye aan yacni inaan dhahno qofkaan qof Soomaali oo muslim ah waaye in la is aamino inaan is aamini karno inaan lacag wax iskala qaadan karno wax isweydaarsan karno aanan ku fikirin beri ma soo celinaa beri ma yeelaa beri ma ku khayaanaa beri ma ku yeeli karaa in la isku dulqaato qalad hadday yimaadaan ma aha in mataqaana bug la dhaho waa in la isku dulqaataa oo la fiiriyaa danta guud maxaa danteeni noo ah in la isku hibeeyo gift in la siiyo waa Soomaaliya waagii hore waxaan xusuustaa waxyaabo qaarkiis yacni hibal isku siin jiray geelaa hibal isku siinaa bani aadana hibal isku siin jiray in wax la wadaago we have to share partner in la isku naxariisto anoo dhibaataysan hadday aragtid inaa ii naxariistid adigana inaan kuu naxariisto ma aha inaan kuga digleeyo in danta guud oo laga wada shaqeeyo in cadowga oo hal dhan loogu soo wada jeesto intaasi tiya midnimo lagu gaari karaa reer banaadir maxay rabaan waa in la siiyo maqaam gaar ah maadaama ay ahaayeen qaawamiyadii waddanka loogu yimid reer banaadir waa in lagu daraa talada maamul sameynta gobolka banaadir iyo howlaha kale ee qaranka beesha caalamka UN-ka jaamacadda carabta ururka islaamka iyo deeq-bixiyaasha laga rabaa inay ku dadaalaan sidii dastuurka loogu saari lahaa 4.5 waxyaabahaniti waxa waaye waxyaabaha ugu muhiimsan yacni maamul goboleedyaa la sameynaya waxaa la sameynaya laakiin tan banaadir waxa waaye anaga naftigeena inaan qayb ka noqono waaye waxaan kaloo rabnaa howlwadeenada siyaasiyiinta nabadoonada iyo cuqaasha Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan sidii la isku cafin lahaa yacni it is important in la sameeyo tirakoob sax ah ee ummadda Soomaaliyeed oo aan la dhihin heblow waa laga badan yahay heblaaya ka badan iyo statistics hala sameeyo hala ogaado yaa badan yaa yar si oo qof walba cadaalad iyo sinaan wax walba lagu qaybsado waqtigan xaadirka waxaa la xaqiijin karin tirada beel kasta sidaas awgeedna waxay cadaalad ugu jirtaa in beelaha oo wax ay u qaybsadaan si siman يعني markaan leenahay tirakoob hala sameeyo doesn't mean mataqaanaa aniga waxaan rabaa wax badan inaan qaato laakiin xataa haddaan aniga mataqaanaa aan yarahay dad kale oo sidoo kale dulmanaa jira oo badan laakiin oo la leeyahay dadkaasi waa badan yihiin banaadir magaca la dhaho waxaan ku soo koobay bulsho allahooda nabigooda aaminsan diintooda islaamkana rumaysan banaadir macnihiisu waa taas bulsho allahooda nabigooda aaminsan diintooda islaamkana rumaysan presentationkayga waxaan ka soo xigsaday meelo badan oo markii horeba waa idin sheegay oo aan researchyaal badan aan soo sameeyey waxaan ka soo qaatay UNESCO 1985 Conventions and Recommendations Immigration and Refugee Board of Canada, Austrian Center for Country of Origin, United States of America Department of State, Professor Lee Kazanelli, Department of History and University of Pennsylvania. Ninkan waxyaabo badan uu ku qoray Soomaaliya internetka haddaa gashiin Lee Kazanelli haddaa ku qortiin waxyaabo badan aad ka arki doontaan dadkan kalena waa ka soo xigtay iyagana mataqaanaa waa mahadsantihiin waqtiga ay siisaan ay ugu dhageysateen
wixii su'aal ah waa i weydiin kartiin waana idin salaamay maxamed cali oo si fiican oo tafaftiran lagu kala fasiray waxaan u malaynaa kuma koobna halkani haddii aad faahfaahin aad sii doonaysaan link oo waxaa jiro oo ku saabsan banaadir waxaadna ka heli kartaan maxamed cali taleefankiisii dhammaantiin waa wada taqaanaan waa walaalkeeni oo ka tirsan banaadiriga joogo Toronto Canada wixii su'aal ah ama presentationkan oo hadda laga jeediyay oo dhanna qofkii oo doonaya inuu mataqaanaa waraysto ama wax ka ogaado ama uusan fahmin xataa maxamed cali uu joogaa weli waa kana soo dhawaado waxaan jeclahay inaan selection aan sameeyo oo asxaabteydii iyo idinka laftigiina dadkii joogay inay fikirkoodii ku aadan presentationka aan sameeyey inay laba hadal ay ka yiraahdaan waxaan kusoo dhaweynayaa cabdirasaaq xuseen geedi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين runtii uma soo istaagin inaan wax ka iraahdo arrinkan balse waxaan usoo istaagay inaan u mahad celiyo sida quruxda badneed oo daraasaadkeeda waqtiga badan uu geliyey maxamed shiiqi ururinta maaragta xadaaradii weyneyd iyo annagoo laftirkayga haddaan nahay soomaalidii kale ay ka faa'iidaysato wax badan maxamed shiiqi waa jeclaa inuu ku darsado resumegiisa inuu jamaal cabdinaasir iskoolka la yiraahdo kasoo dhigtay roommate baan ahayn aniga asaga class baan ahayn 12 sano oo dugsiga ordinariga marka dee waa nin dooba dilacsaday hadda waa arkay af soomaaliga iyo isugu uga hadlahay marka waxaa weeye waxay ahayd qorsho iyo daraasaad cilmiya oo anagu maaragtay aan wax ka ogeyn laakiin tafatir ahaan ama guud ahaan aan usoo dhexgelin balse waxaan usoo istaagay waxay tahay sida hadda kaba muuqata maxaa la yidhaahdaa howlkan yarka annagu reexamar baan nahay ha lagu soo kala hormaro balse inaanu raalli ka nahay dadka walaalahayo xamar reer xamarka ah waa nala dhasheen waa la dhalanay waa ka qabnaa way noo dhaleen marka waxaan leeyahay wixii dhacay ma ahayn wax soomaali weyn ay ku tashata ma ahayn ama qabiil gaar oo ku tashaday waa la socotay qof kastana meel bay daraf bay ka gaartay balse hadda waxa uu walaalkan maxamed cali usoo qorsheeyay tan waxay tahay in maaragtay masaalixdii iyo walaaltinimadii weligeed jiri jirtay ee hore usii socoto dadkaan walaalaheennana maaragtay representationkooda iyo culayskooda aan maaragtay la qiimo tirin haddii laga tira badan yahayna macnaheedu ma aha inaysan xuquuq lahayn marka mar labaad waxaan leeyahay hambalyo adigii ragga kula soo shaqeeyey daraasaadka wad annaga waxaan nahay soomaalidan kale aan reer xamarkaheen waan ayidsanahay waan idin ayidi doonaa weligeenna waan idin ayidsanayn 1996 baan xamar bartagay waxaan arkay odayaasha reer xamarka oo jooga arkada number 4 waa garanaysan waqtigaas ay ahayd oo banaadiriga ah reer banaadiri baa ujeedaa waan arkay inuu ka gedisan yahay ragga kaloo meesha jooga waan wareysta waxaan ku yidhi marre shangaani baa tahay haa buu yidhi maxaa halkaa ka qabataa baan ku yidhi wuxuu yidhi 2 baabuur oo yaryar baan leeyahay oo xaaji khamiisiina ah marka 2 darool baa ii wado meeshaa ka ilaalsadaa aniga marka qalbigayga waxaa soo dhaqday waqtigaas in reer xamara siduu ugu kalsoonaaday in 2 baabuur uu ku aamino magaalada xamar waa la isdhacahayay waagaas marka waxaan ku yidhi oo yaa baabuurta ku wada wuxuu 2 wiil oo 2 gabdhood aan dhalay guursaday baa ii kala wadu yiri oo qolooyinka fara dheerta waa sii kaftarnay wuxuu igu yiri haddaan reer banaadiri nahay qaladaadkii aan galno waxaa ka mid ahaa muddo badan integration lama aana sameyn soomaalida kale yacni waxa weeyaan waxaan aada u xayirnay ama
xagga guurka inaan maaragtay kala joogno laakiin waxay ahayd dambiyo ay galeen odayaasheenii hore bas hadda wixii ka dambeeya waan aragnay integrationka halkaan markaan joogno waddankaan markaan joogno waanu lagula taliyaa saan dadku dhex galno inaan bulshooyinta kale oo adduunka inkastoo islaamnimadu annagu ay naxayirayso in integration laga sameeyo laga guursado dhaqamadooda la barto marka waxaan leeyahay sida ninkaa odagaa uu igu sheegay raad bay iga tagtay waxaan leeyahay raxamaro integration sameeya naga guursada annagana waa idinka guursadana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa u salaaman tihiin maanta waa maalin weyn oo maxay ahayd toy muujinaysa ummadda Soomaaliyeed inay jaan wada qaado walaalkeen wuxuu soo sameeyay arrin taariikhi ah oo markaad eegtid meel kasta taabanaysa xadaaradda aynu lahayn oo aynu la wadaagno dad walaalaynu nahay reer banaadir xadaaradooda dheer oo ku salaysan islaamka ku salaysan quruntii tagtay ku salaysan markii la doonayay India in la tago oo Columbus markuu halaabay oo halka imanayay Vasco da Gama markuu socday oo xagga tagay Ibn Battuta oo yimi taariikhdaas oo dhan taariikh aad u ballaaran oo ay xamar leedahay weeye dadkooduna waxa weeye dadkii Soomaaliyeed oo ku soo hiranaysay oo maanta xorriyadaynu haysano qayb weyn ka soo qaatay marka waa walaalkeen waxaanu leenahay wuxuu muujiyay arrin loo baahan yahay baadhis siyaasadeed iyo taariikheed oo aqoonyahanka kale ay ka gaabiyeen waa hawl buu bilaabay hawshaasuna waa loo baahan yahay in taariikhdii Soomaaliyeed meel kastaba saas loo qoro oo la soo saaro arrinta kale oo ah walaalkeen uu sheegay oo cadaalad darrada ah oo kacdoon kasti uu ka koc cadaalad darro ilaah baa diiday ilaahayna adduunkan wuxuu soo diray anbiyaashii si cadaalad loo helo waxaana ilaahay anbiyaasha markuu soo diraayo waxa dad yar baa raaca marka ugu horeyta oo aqoontooda fiican tahay marka aqoonta iyo garashadu waa wax weyn oo bini'aadmigu u baahan yahay sidaa darteed xamar iyo agagaarkeeda sidoo walaalkeen inoo sheegay warshiikh haddaad ka soo qaadid Mukhtaar ninka la oran jiray waxa weeye culimada lagu dhaato ayuu ka mid yahay oo maxay ahayd meesha Trim la yiraahdo oo ku taala Yemen ayaa xaruntooda ahaan jirtay Trim waxa weeye waxa ka dhisan 400 masjid 420 masjid baa ka dhisan Trim waxay ku taala muxaafadada lixaad oo maxay ahayd Yemen Mukhtaar Sheikh Mukhtaar waxa weeye culimada ugu waaweyn ayuu ahaan jiray cilmiga meesha loo doonan jiray xamar buu ahayd iyo maxay ahayd warshiikh iyo dhulka cilmiga loo doonan jiray meeshaas ay ahayd marka hadda waxaan ilaah ka baryeynaa oo walaalkeen maanta inuu ku baraarujiyay oo meeshan inuu isugu nimi oo aynu u baahannahay inaynu madowno wixii horena ilowno safad cusubna bilowno Soomaalina ay dariiqsan wada marto baynu u baahannahay waxaan ku mahadinaynaa walaalkeen iyo qolooyin ka soo shaqeeyo oo dhan ilaahay inuu ka abaal mariyo ummadda Soomaaliyeedna ilaahay badbaadiyo qarankiina soo celiyo sharafteenana soo celiyo ilaahayna meel san wada mariyo waana mahadsantihiin adkeeyo midnimada wassalaamu calaykum xildhibaan cawad casharo waa mahadsantahay halkan waxaan ugu yeerayaa maxamed faarax caliyow korneel maxamed faarax caliyow kusoo dhawow adigana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتا محمد علي شيخ آدو مهتسين هاي سيدا ونوش سيدا في عن وتاريخ ذا نوش شيء تاريخ ذا بنادرية وتاريخ الصومالي ودن مركز سيدا تاريخ ذا نوبرتي آد يعني كوجو مهدينا waxyaabo badan taariikh badan Soomaaliya dooriyaal badan ay soo martay marka isticmaalkii xoriyadoonkii waxa soo dhan intaas oo dhan reer Banaadirigu waxay uga jireen foodo hore uga jireen laf dhabarkay ahaayeen waxa waaye dad ku tilmaaman nabad jaceelka xorriyaddii waxbay ka raadiyeen haddana
waxay ku raadiyeen si nabad ay ku raadiyeen dagaal kuma raadin waana arkayseen raggii xorriyadda Israel waxayna markii la soo magacyada loo sheegay lix waxay reer banaadir wax lagu faani kara waa haddana waxay u muuqdeen dad oo maaragtay nabad hoon dagaal iyo waxba ku jirin marka aniga waxaan ku leeyahay hadda yacni naftirkeeda tiyo kala lagu jiraa tii hore waxay noo yahay taariikh fiican waxaa la yidhaha tagtada iyo timaado qabo wixii hore taariikh aan ka dhiganno dadaalka hore taariikh aan ka dhiganno hadda tii mid ka daran aan ku jirnaa isticmaalkii hore ka fool xun aan ku jirnaa markii hore wuxuu ahaa isticmaal oo dawlad inta lagu keenay oo ciidan kuu keensato in lagu isticmaalsanaad og tahay ayaguna kuu marakacayo inay waddankan aysan lahayn ay u yimaadeen inay maaragtay danahooda ka fushadaan talyaaniga ugu dambeeyo yacni wuxuu yidhi Soomaaliya dowladnimaan gaarsiina marka halgankii hore halgan la mida ama ka weyn ayaa hadda loo baahan yahay hadda loo baahan yahay sababtoo ah hadda anaga waxaan haysto isticmaar cusub aan haysto maskaxda nagala gumaystay xoolaha nagala gumaystay waxaan gumaysanaa ma naqaan dowlad hebla ay gumaystay ma dhihi kartid hal dowlad ma sheegi hal dowlad oo iska celisa ma garan kartid waxaan gumaysanaa dowladaha xataa waddankeena iyagu iska leeyihiin sheegana aan gumaysanaa marka waxaa waaye tii hore waa ka soo tagnay guul aan gaarnay isticmaalka waa iska ceerinay dowladaan naqanay hadda waxaa waaye waa noola heshiiyey Soomaaliya waxaa la arkay inay yihiin dad firfircoon dad awood badan leh dad aqli badan leh dad isku duuban dad maaragtay inay wax iska celi karo ayaa la arkay taas waxay dhibtay dadkii dowladihii Soomaaliya markii hore 5 qaybood u qaybiyay taas way dhibtay qaas ahaan marka 77 1977 ay Soomaaliya xoreysay dhulkii isticmaalku ka qaato dhan oo isticmaalku uu siiyay dowladaha dariska markay xoreeyeen waaga ku bariyay dowladihii Yurubiyanka ee Soomaaliya qaybiyay waaga ku bariyay waa noola heshiiyay marka hadda si fiican noola qaybiyay hadda qabiil nagala dhigay hadda cadow la iskaga keen dhigay dadaalka runta goonidoonka dalka hadda loo baahan yahay marka aniga reer banaadir waxaan leeyahay awooddaad leedihiin iyo aqligaad leedihiin iyo dadaalka aad soo marteen dhulka ha dhigina meeshiina ka bilaaba Soomaaliya hadda u baahan tahay xoreyn reer banaadir hadda u baahan yihiin in la xoreeyo jawaabta hal su'aal uu weydiiyay maxamed wuxuu yiri maxaa dhibaatadii loo gaarsiiyay maxaa noogala ma aragtay loogala raali geli waayay oo yani wax noogula qabo waayay oo dadka cadaaladda dilman wax looga qabo waayay maxaa lagu qabtaa Soomaaliya xor ma aha isma xukunto xor ma aha waan wax aan sameeyna waan noloda taariikh marka taas talada ku darso laakiin Soomaaliya reer banaadir waa yaqaaniin waana jecel yihiin dad nabadeed waaye dad firfircoon waaye dad ilbaxa waaye Soomaali dadku ugu ilbaxsan waayaan dhigi karaa laakiin waqtigeeda la suga Soomaaliya markay xorowdo la suga inta meeshaan fadhido iyo inta naga maqan dhibaatada la idin gaarsiiyay cid walba waa ogtahay laakiin Soomaaliya markay xorowdo markaas la suga waa leen ka raali gelina waana gacanta leen ka marina dhibaatada in ku dhacdayna Soomaaliya waa ogtahay Soomaaliya adinka ugu horeysana adiga aan ku ilbaxsan beeshiina jooga moraalkii uu ka halaabin dhulka ha dhicina niyadda iska haleynina insha Allah ta'ala hadday noo tahay hadda goor tahay waa imahadsantiin